إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء إن شاء الله تبارك وتعالى محاضرة وحن وهل دونا هدي أي كلمان عيد إيا جمعة هل مالين محل السمانية محين علماء كيراهدين هدي أي دعضو إن أي كلمان مالين عيد إيا جمعة محي علماء كيراهدين محان الله السمانية arrimahaas ayaan insha Allah ta'ala muxaadaran ku ogaa doonaa marka ugu horeyso waxaan ka hadlaynaa aqwaalul culamaa fi mas'ala mas'aladan maxay culimadu ka dhaheen hadii ay kulmaan ciid iyo jumcaha maxay culimadu ka yiraahdeen ilaa afar qowl ay culimadu mas'aladaas ka qabaan qowlka koowaad wuxuu leeyahay hadii maalin ciid iyo jumca ay kulmaan jumcadu way waajibaysaa waa la dukanayaa oo ciidu ku dhici mayso oo waxa weeyaan labadooda midkood midka kala miridahayo saaxiib ibn Qudaama hadalkan wuxuu ka soo naqliyay fuqaha aad u fara badan qowl labaadna wuxuu leeyahay dadkii ciida dukaday in ay jumcaha yimaadaan soo xaadiraan way ka dhacaysaa marka la leeyahay jumcaha way ka dhacaysaa waxa shardi buu leeyahay Ahmed duurka in la dukado qowl saddexaad mas'aladaas ku jira wuxuu leeyahay jumcadu way dhacaysaa oo waxay ka dhacaysaa dadkii meelaha fog ka yimiday ee magaalada ka fogaa wadadka tuulooyinka iyo dadka macnaha aan magaalada u dhaweyn dadka kale laakiin kama dhacaysa uu leeyahay oo ay waxa laga rabaa in ay jumcihii dukadaan maadaama ay magaaladii joogaan oo ay yacni maaragtay dukan karaan oo ciidii iyo jumcihiiba hal maalin hadii kulmaan way dukan karaan qowlkaasina waxa qaba sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa radaa waana qowlka ay qabaan jumhuur aad u fara badan qowl afaraad oo mas'ala ku jira wuxuu leeyahay salaada ciida dib baa loo dhigayaa oo waxa la dukanayaa markay qoraxda aad u soo kor noqoto jumcana la dukan maayo duhurna la dukan maayo hadii ay dhacdo inay kulmaan ciid iyo jumca hal maalin oo maalin jumca ay noqoto maalin ciid ah waxa la sameeyaa ciid baa dib loo dhigayaa ilaa ay qoraxda kor ka noqoto jumcana la dukan maayo duhurna la dukan maayo qowlkaasina waxa ku tagay Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Abbas iyo culimo kalaba saas ay qabaan oo waxay leeyihiin ilaa casrka laga gaaray wax oo la qabana ma jirto qofka haduu dukado salaada ciida ilaa casrka laga gaaray wax laga rabo ma jirto ay leeyihiin qowlkaas afaraadna halkan waxa ka fahmayna walaalayaal haday dhacdo ciidi inay jumca ay la kulanto oo ay maalin jumca noqoto ciid afar qowl inay culimada ay ka qabaan qolo waxay yiraahdeen ciid way dukadeen jumcina waa laga rabaa qolo waxay yiraahdeen dadkii ciida yimidi inay jumcaha yimaadaan way ka dhacaysaa qolo kale waxay yiraahdeen oo saddexaad dadka meelaha fofookiyo magaalada ka baxsan matuulooyinka fog degan ay jumcaha ka dhacaysaa laakiin dadkii magaalada deganaa jumcihii waa laga rabaa qolo kale waxay yiraahdeen salaadii ciid baa dib loo dhigayaa ilaa waqti dambe kadibna ciid baa la dukanayaa ilaa casirkan wax loo soo noqonaa ma jirto qayb baan ugu gudbaynaa oo ah adilada ay daliiseen qolooyinkaas iyo adiladaasi waxay culimada ka dhaheen qolada qabto jumcada iyo ciida ma dhacayaan oo qofna kama dhacayaan waxay leeyihiin jumcada way waajibtay li umum al-aaya aayad umumkeedii baa tusinhayo iyo waxa tusinaya ahadiisi faraha badneed ee ku soo aroortay in jumcada ay waajib tahay waxay kale leeyihiin waa laba salaad oo waajibay oo midood midka kala miridiisa bay sida duhurka oo ciida uusan ugu dhaceen bay leeyahay sheekh ibn Mudir oo masalaas ka hadlaa wuxuu yiri أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس وعليه أهل العلم وحي كو إجماعين أو هشيس كويهين صلاة الجمعة إني واجبتي أخبارت النبي محمد كسنات عليه الصلاة والسلام وحي توسيسي صلاةها واجب كإن أي شيهين صلاة عيدنا شنطة كمد معهن هدي مر كتابك إلهي iyo sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo ittifaaqi salaada inay jumcaha waajib aday sugnaatay adilla farad badan nabiga ka sugnaatayna ay tusis arintaasi in salaada ciid ay tahay tadawuc wuxuu leeyahay lam yajuz tarku fardin bi tadawu'in in la yiraahdo sunna ayaa farad loogu tagayaa arintaas socon mees buu leeyahay
hadalkaasna waxaa laga wariyaa cali bn abi aalib radi taala canhu ardaahu oo cali bn abi aalib taala canhu ayaa wuxuu ahaa yusalli alciida maca aljumca ciidda iyo jumcaha waa wada dukan jiray sida cabdurasaaq musanafkiisa uu kusoo saaray inkastoo sanadkiisa dacfi uu ku jiro waana qowl abu xaniifa uu qaba radi taala canhu ardaahu uu leeyahay laa tasqudu ljumcatu can ahli lbaladi walaa ahli lqura dadka tuulooyinka iyo beledka dadka degan intaba inay jumcihii ka tagaani ma ansixiisa ayuu leeyahay imaam abu xaniifata radiallahu tacaala canhu ardaah qowlkan ah in ay jumcuhu dukanayaan dadkii ciidda dukaday waa qowlka xaqiiqda ugu dhow baa la yidhaahdaa hase aatee kama uusan jawaabin qowlkan asaga ah xadiiska cuhmaan bin cafaan radi tacaala canhu ardaahu oo cuhmaan bin cafaan ayaa wuxuu u ruqsiyay ama u fasaxay dadka ka baxsan magaalada ama tuulooyinka degan in ay yani maaragtay salaada ciid hadday soo xaadiraan jumcahana inaysan yani imaanaynin sidaan arki doona insha allahu tacaala aharkaas asagana wuxuu ku yaala ama ku soo arooray saxiixulbukhaari mana la sheegin qof asxaabtii nabi maxamed ka tirsan calayhi salaatu wasalaam ee cuhmaan bin cafaan arrintaasi ku qabsatay waana waxa ugu ansaxsan ee baabkan ku soo arooray baa layidhi ilaa imaamu shawkani hadal uu sheegay mooyaane imaamu shawkani ayaa kitaabkiisa nal-awdaar wuxuu yidhi qowlka cuhmaan ma gaara yeelaya qowlkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhan markii laga fiiriyay arrintaas waa sax qowlka cuhmaan bin cafaan radi tacaala canhu ardaahu qowlka nabi maxamed ma gaara yeelahayo waa sida la og yahay laakiin xadiidkan damba inuu asaxay ina kala ayaa idan laysku haystaa waan arki doonaa insha allahu tacaala qowlka labaad ee qabo jumcaha way ka dhacaysaa haddii duhur la dukado waxay daliilsanayaan xadiiskii iyaas ibnu abi ramla wuxuu leeyahay waxaan la joogay mucaawiyat bin abi sufyaan radi tacaala canhu ardaahu asiga oo weydiinaya zayd ibnu arqam ee dhahaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma la dukatay laba ciid oo hal maalin kulmay markaasuu yidhi nacam haa waa la dukaday mucaawiya wuxuu yidhi sidee nabiga uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu arqam wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ciiddii buu dukaday kadibna jumcada wuu fasaxay wuxuuna yidhi man shaa an yusalliya falyusalli qofkii ciidda yimiday hadduu doonana hanala dukada jumcaha haddii uu doonan ha iska dhaafo ruqsa buu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska asaga ah dacfi baa lagu sheegay ibn mudir oo xadiiskaa ka hadlaa wuxuu yidhi hada alxadiidu laa yahbutu xadiiskan asaga ma sugno xadiiskan sheegahayo in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin jumcaha ciiddii iyo jumcihii uu dukaday oo welibana ninkii ciidda dukaday u fasaxuu yidhi haddaad doonta jumcahana la duko haddaad doontaan ha dukanin xadiiska asaga ma sugna buu leeyahay waxa uu leeyahay raawigan iyaas ibn abi ramla ee zayd ibnu arqam ka warinaya waaba majhuul buu leeyahay ibnu khusaymana wuxuu yidhi ninkaa isaga jarxi iyo tacdiil midna kuma sugnaanin sida ibnu xajar casqalaani uu soo naqlinahayo qowl kale marka wuxuu leeyahay haddii jumcihii iyo ciiddii ay kulmaan waxaa la leeyahay ciiddii waa la dukanayaa jumcahana way dhacaysaa oo laakiin waxaa shardi ah inaan duhur la dukado adiladeena kolle waad aragtaa qowlka saddexaadna wuxuu yidhi tasqudu ljumcatu can ahli alcawaali albaciidiina can almuduni waalqura miman laa tajibu calayhim aljumcatu faqad jumcadu waxay ka dhacaysaa dadka magaalada ka fog oo tuulooyinka degan ama tuulooyinkaba ka fog oona ka mid ah dadka aynay jumcaha ku waajibaynin maxaa yeelay ayaga asal ahaanba ma maqlaan salaada jumcaha oo la oogahayo hadalkaasina waxaa qaba cuhmaan bin cafaan radi tacaala canhu ardaah imaam albukhaari ee saxiixiis wuxuu soo saaray xadiidkii imaam zuhri inuu yidhi xadathanii abu cubayd waa mawla ibni azhare annahu shahida alciida yowma aladxaa maca cumar bn khadaab radi tacaala canhu ardaahu fasallaa qabla alkhudba wuxuu leeyahay abu cubayda waxaan soo xaadiri buri maalin ciidul adxa ay aheeday cumar bn khadaab radi tacaala canhu ardaah cumar bn khadaab radi tacaala canhu salaadii buu dukaday khudbada ka hor waa sida caadi loo yaqaana kadib dadka buu khudbo u akhriyey kadibna wuxuu cumar yidhi yaa ayuha annaas ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qad nahaakum can siyaami haadayni alciidayn labadan maalmood ciidda inaad soontaan nabigu idinka reebay dadow labada midkood waxa weeyaan maalinta ciidulfiriga weeyaan oo soonkiina u dhammaado maalinta kalena waxaan waa maalinta aad cunaysiin oo aad nusugii aad samayseen oo ahaa udxiyadii aad cunaysaan abu cubaydu hadalka sii wataa wuxuu yidhi ciid baan haddana kala qayb galay cuhmaan bin cafaan radi tacaala canhu ciiddiyaa wuxuu kusoo aaday maalin jumco ah salaadii buu dukaday khudbada ka hor kadib dadkii buu la hadlay wuxuu yidhi dadow maanta waxaa kulmay laba ciid baa idiin kulantay waa ciiddi iyo jumcihii weeyaan qofkii jecel inuu yacni mar jumcaha sugaayo oo dadka fofo ka mid a ha iska sugo
oo macnaha la dukada qofkii jacayl inuu iska laabto oo dadka fafog ahna waan u fasaxaa iska baxo abu ubayda si wata hadalku wuxuu yiri thumma shahidtu ma'a ali ibn abi talib ciidi oo maalin jumca ku soo aaday ayaan cali la dukaday buuri sida caadiga salaada buu dukaday kadibna khudbada buu akhriyay markaasoo cali wuxuu yiri wuxuu rasuulkiisa ka reebay calayhi salaatu wasalaam inaad cuntaan xoolihii aad ku udxayseen hilibkooda 3 maalmood ka badan hadalka marka la rabaa wuxuu yahay hadalka Uthman ibn Affan ta'ala anhu ya ayuha an-nas inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fi 'iidan maantan waxa idin kulmay dadow laba ciidood faman ahabba an yantadhir al-jum'ata min ahli al-awali falyantadhir qofkii meel fog ku yimid oo haduu jeclaado haska sugo oo jumcaha la dukado waman ahabba an yarji'a faqad adintu lahu haduu qofku macnaha jeclaado inuu laabtana waa un fasaxay iska baxburi marka sayyidina Uthman ta'ala anhu waradahu ayaa wuxuu leeyahay dadka meelaha fog magaalada ka degan hadii ay ciid soo xaadiraan jumcihi uu ka dhacayaa waana ogolnahay laakiin dadka magaalada ay jumcahi way dukanayaan dadkii magaalada laga hadlmaa walaalayaal Uthman wuxuu ka hadlaa waxa weyn walaalayaal dadka meelaha fog ka yimid ama dadka magaalada ay inay dukanayaan hadalkiisa waaba ka muuqataa waana aqwaashi midku ansaxsan oo saxaabada ka sugnaaday ayaa la leeyahay arintaas iyada Uthman ibn Affan cid khilaaftay oo saxaabada ka tirsanna ma jirto imaam Nawawi rahmatullahi alayhi kitaabkiisa majmuuc ay wuxuu ka soo naqlinaa jumhuurul ulama oo wuxuu yiri qad dhakarna anna madhhabana wujub al-jum'ati ala ahli al-balad wa suqudaha an ahli al-qura wa bihi qala Uthman ibn Affan wa Umar ibn Abd al-Aziz wa jumhuurul ulama imaam Nawawi rahmatullahi alayhi wuxuu leeyahay waxaan hore u soo sheegnay madhabkeena waa madhab Shaafici inuu qabo jumcaha inay waajib ku tahay dadkii magaalada degana dadka magaalada degan jumcaha waajib ay ku tahay sidoo kale madhabka Shaafici wuxuu qabaa buu yiri in jumcaha ay ka dhacday dadkii tuulooyinka ama magaalada ka fogaa hadalkaasna waxa qaba Uthman ibn Affan iyo Umar ibn Abd al-Aziz iyo jumhuurul ulama ayaa qaba hadalka noocaas waxa ku tagay imaam Dahawi radiyallahu ta'ala anhu ardahu kitaabkiisa mushkil athar markuu arintaas ka hadlayay imaam Dahawi wuxuu kamid yahay Xanafiyada soo kadalkaas waxa qaba ibn Abd al-Barri wuxuu kamid yahay Maalikiyada waxaan arinta xoojinaya imaam Muslim radiyallahu ta'ala anhu ardahu xadiiska uu soo saaray ee ahaa xadiiskii Habib ibn Salim oo ahaa mawla an-Nu'man ibn Bashir an-Nu'man ibn Bashir uu ka warinayay Nu'man ibn Bashir wuxuu yiri kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil ciidayn rasuulka alayhi salaam ciid wuxuu akhrin jiray iyo fil jum'ati iyo salaad iyo jum'ahaba bisabih ismi rabbika al-a'la wa hal ataaka hadithul ghashiya salaadaha ciidaynka iyo jum'aha markii la dukana nabiga alayhi salaam wuxuu akhrin jiray sabih ismi rabbika al-a'la iyo hal ataaka hadithul ghashiya markaas wuxuu yiri wa idha ijtama'a al-ciid wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aidan fi salatayn hadii ay dhacdo ciidi iyo jumcihi inay kulmaan labadaas suuradood uu akhrina labada salaadoodba tusaalahan hadii suuxi ciid la dukado oo la akhriyo sabih ismi rabbika al-a'la iyo hal ataaka hadithul ghashiya markii jumcaha la dukanayna iyadana waa la akhri karaa arintaasna way banaan tahay marka halka waxa laga garanayaa leeyihiin rasuulka alayhi salaam inuu ciid iyo jumcaha labadaba uu dukan jiray marka qolka saddexaad wuxuu ku tagay salaada ciida ah waa la dukanayaa jumcahana waa la dukanayaa iskuna shaqaba ma ahan qolka afar mas'ala ku jiran wuxuu ahaa jumcaha iyo duurka waa meesha way ka baxayaan qofka haduu salaada ciida dukado jumcana lagama rabo duurna lagama rabo waxaana qabaaniri qolkaasi Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Abbas iyo Adha ibn Abi Rabah iyo culimo kale waxayna dilisana xadiiska uu soo saaray Abu Dawud ta'ala anhu arda Adha ibn Abi Rabah wuxuu leeyahay salla bina ibn Zubair fi yawm ciid fi yawm jum'atin awwal an-nahar Abdullah ibn Zubair ayaa maalin ciid la dushiyay oo maalin jumcana aheeday maalinta gelinkeedii hore thumma kadma ruuxna ila al-jum'ati kadma jumcada aadnay buuri falam yakhruj ilayna ma musabbihin maalinta jumcihi ma nasabbihin fasallayna wahdanan kaliban dukanay buuri wa kaan Abbas wuxuu ahaa bidaa'if Abdullah ibn Abbas xilliga ma joogino magaalada Daa'if ayuu jiray markii Abdullah ibn Abbas uu yimidaan waxaan niri Abdullah ibn Zubair maalin jumcaha oo ciid la dukaday ayuu jumcihina uu sanad la dukanin oo na dushinin asana madax ahaay Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri asaaba sunnah sunnada Nabi Muhammad ayuu asiibay hadalkaasina waxa si fiican u hadlay ibn Abd al-Barri oo tilmaamay inuu hadalkaasi yahay hadal mahjuurun hadal laga tagay oo waxba aan laga soo qaadeen inuu yahay ayuu ibn Abd al-Barri uu tilmaamay marka waxaan leeyahay khulaasatul qawl hadii ay dhacdo maalin jumca ah iyo maalin ciid haday kulmaan afarta qowl ayaa culimadu ay ka qabaanaan iri qola tiri jumcihna waa la iska rabaa salaad ciidna waa dukanaya qola tiri dadkii ciid ka soo qayb galay ayaga jumcihi way ka dhacaysaa waxa sharda in la dukado duhur oo duhur laga tagmaayo qolana waxay yiraahdeen
jumcaha waxay ka dhacaysaa dadkii magaalada ka fogaa, dadkii laakiin magaalada deganaa jumcihii waa laga rabaa. qolan waxay yidhahdeen ciiddii baa dib loo dhigayaa, haddii ciidda la dukado ayaa waxaa la samaynayaa jumcihiina la dukan maayo, duhurna la dukan maayo, casirka unbaa lasugu imaanayaa ayay yidhaahdeen. qolo walbana adilo bay keensadeen, yacni maaragtay juhdi bay bixiyeen. hase ahaatee khulaasatul qowl waxaa noo soo baxaya walaalayaal, nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan ka ansixin xadiis tilmaamaya haddii jumce iyo ciid ay kulmaan in jumcihii laga tegahayo. mas'alo waa taasa. waxa ugu asaxsan oo mas'alada ku soo aroora wuxuu noqonayaa atharkii Cuthmaan bin Affaan radiyallahu ta'ala anhu ardaahu oo saan hor u soo sheegnay ku yaala Sahih al-Bukhariga. atharka Abdullah ibn Zubair ma mucaaradi karo xagga awood ahaan atharkii Cuthmaan bin Affaan radiyallahu ta'ala anhu ardaahu, sababtoo ah Cuthmaan bin Affaan atharkiisu wuxuu ku yaala Sahih al-Bukhari, kan wuxuu ku yaala Sunani Abi Daawudka. waxa ugu xoog badan qowlka dhahaya dadkii soo xaadiray ciida haddii ay ku jiraan dad magaalada ka fog ay inay jumcaha ka dhacayso, laakiin dadkii magaalada jumcaha waa laga rabaa. dadka magaalada mar walba jumcaha waa laga rabaa. ama dadka ka fog magaalada oo aan cimaarata ama tuuladaas ka fog ay inay jumcihii iska dhaafaan way u bannaan tahay. qowlkaasna waa qowlkii Cuthmaan bin Affaan radiyallahu ta'ala anhu waradahu uu qabo, waana qowlka ugu dhow ee xagga sunnada, waana qowlka ugu wanaagsan oo tilmaamaya in la isku keena aqwaasha culimada. marka waxaan leeyahay masaladaasi dhowr mar bay dhacday oo aan aragnay, markayaan muran iyo dood la gelinin. dadka magaalada joogo jumcihii way dukanayaan, sidood bay oogayaan. haddii isku soo aado maalin jumca iyo maalin ciid, ciidna waa la dukanayaa, jumcina waa la dukanayaa. sababtoo ah ciidda waa sunna, jumcahana waa waajib, waajibna sunna looga tegi maayo. intaa ayaan kusoo koobayaa kelimadii ku saabsaneeday haddii ay kulmaan ciid iyo jumca maalin maxaa la samaynaya ama maxay culimmadu ka dhaheen. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.